السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا muuqaalkeena maanta waxaan ku lafaguraynaa oo aan ku faaqidaynaa waa maxay ereyga philosophy. maalin walba waxaan maqalnaa falsafo, philosoph iyo waxyaalo kale oo halmaala. haddaba waa maxay ereyga philosoph? marka hore ma jiro erey af Soomaali ah oo lagu micneeyay ereyga philosophy, kumana jiro qaamuuska Soomaaliya erey micneen. balse maanta waxaan qaadan doonaa ereyga philosophy. philosophy waa laba kelmad oo Greek ah oo micnaheedu yahay philo micnaheedu waxay tahay jacayl, iyo erey kale sophy oo micnaheedu tahay xikmad. markii la isku geeyo waxay noqonaysaa waa jacaylka xikmadda, philosophy. intaa kadib waa maxay jacaylka xikmadaha? jacaylka xikmadda waa dhaqdhaqaaq fikradeed oo insaanku sameeyo kuna wajahan dhammaan dhinacyada nolosha. taa waxay noqon kartaa in wax kasto aan ka eegno xikmad oo weliba si xeel dheer ah siyaabo kala duwanna aan u eegno. dadka caalamka ama bulshooyinka caalamka ku nool ereygaas si badan ayay u qeexdeen, waxaana loo eegayaa dhanka nolosha. ereyga philosophy marka hore waxaa adeegsan jiray dadkii hore ee Greek ah, iyaga ayaana laga soo gaaray ereygaasi philosophy. hadda ka hor ayaan waxaan ka soo sheekeynay raggii ugu caansanaa ee filsofnimada. raggaasi oo nolosha wax badan saameyn ku yeelatay. qof walba inuu philosoph noqdo ma ahan wax caqliga galayo, laakiin waxaa jira dad ku caanbaxay filsofnimada. waxaana ugu caansanaa aabbihii falsafadda, ninkii keenay philosophy oo lagu magacaabo Socrates. ninka Socrates ah lagama hayo wax qoraal oo xaqiiq ku saabsan, laakiin taariikhahanada adduunka ayaa isku raacay inuu yahay filsofyankii ugu horeeyey ee caalamka soo maray. laakiin waxa uu lahaa ardaydiis ka dambaysay ayaa ka qoray in yar oo gaagaaban. alfadon, Plato iyo Aristotle waxay ahaayeen raggii ugu caansanaa ee soo baxay qarniyada dhexe. iyagana waxay ahaayeen filosofiyo ugu gaaray nolosha meeshii ugu saraysay. su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay, ma jiraan filosofiyo muslimiin ah? haa, way jiraan. waxaa ka mid ah ibnu rushdi, Farab iyo ibn Sina, kuwaas oo xitaa heer waxay gaareen in ay ka shakiyaan noloshooda. laakiin waxaa jira mid kale iyo ka duwan oo ahaa imaam al-Ghazali, oo aad u dhaleeceeyey labadaas si indhala'aanta ah ay u raaceen fikraddii Greegii hore, kuwaas oo markii dambe uu ku radiyey kitaabkiisii ahaa Tahafati falsafa. markii dambe imaam al-Ghazali waxaa ku dhacay cudurkaasoo loo yaqaano shaki, oo muddo dheer kadib ilaah ayaa caafimaadkiisii ku soo celiyey oo uu caafimaaday. sidoo kale filosoofkii caanka ahaa ee Descartes oo u dhashay Faransiiska, heer wuxuu gaaray in uu ka shakiyo jiritaanka noloshiisa oo dhan. wax walba wuxuu ka dhigtay riyo, socodka, cunida, aragga, hurdada iyo wixii la mid ah. sannado badan waxa uu sawirnaa meereysi iyo wax walba inuusan aaminin, wax walba u arkana in uu ka shakiyo, ilaa iyo markii dambe oo uu ku dhawaaqay in uu yahay qof jira. markii dambe ayaa dadkii waxay weydiiyeen in uu jiro iyo in kale. wax uu ku fahmay, waxa uu ku jawaabay waan fikiray oo waxaan ku jawaabay haddana waan jiraa. nolosha inay tahay wax dhab ah hadda ayaan ogaaday, wax kastana way hagaag noqdeen. sidaas ayuu ku jawaabay Faransiiskii caanka ah ee Descartes.
wax kasto in ay ahayn iska raacraac iyo wax kasto in la sameeyey ayaa ah xadiiskii nebiga wuxuu yidhi laa takun imaca ha noqonin dhaanraac oo meel walbo loo jiidjiidayo xilli walba noqo qof go'aan leh ku qiyaas qaado waxyaabaha suuban oo ilaahay ku amray xilligan casriga ah aynu joogno xikmaddu waxay sheegaysaa in loo isticmaalo waxyaabaha nolosha qiimaha ku leh oo waaqica jiro inaan laga shakinin waxyaabaha jira sida dhulka ciirka xidigaha meeryaasha iyo qoraxda isweydii awoodda ilaahay uu ku uumay dhulka ciirka iyo waxyaalahaasi wax la mid ah faylasuufyada caalamka ayaa heer waxay gaareen xitaa qaarkood in ay diintii ka baxaan oo waxyaalo ay shaki xitaa ka galo intaan ayaan ku soo afmeeraynaa qodobkaasi ahaa filosofi ma ahan cashir yar balse qeyb ayaan usii dhammaystiran doonaa haddii aad qodobkan ka heshay like saar haddii aad ku cusub tahay janaalkeennana subscribe noo saar sanid